taleefannadeena miyay dhageystaan oo xogteena intay aruuriyaan miyay cid kale u sii gudbiyaan gaar ahaan social media aan isticmaalno ee kala duwan xogteena miyuu ka ganacsadaa oo cid kale miyuu ka iibsadaa waan huba ina aragteen arrinta ah su'aalahan adoo asxaabtaada la fadhiya ayaad waxaad leedahay warniman yahow waxaan u baahanahay in aan iibsado saacadda noocaas iyo noocaas ee yaa xog ka haya ama telefoonka noocaas iyo noocaas ayaan rabaa in aan iibsado deedna xaafadda markii aad tagtid mid ka mid ah social media-ga furtid ama Instagram-ka ama TikTok ama Facebook-ga muuqaalka ugu horeeya ama sawirka ugu horeeya ee ku soo baxaya wuxuu noqonayaa wixii aad asxaabtaada kala sheekaysatay ee aad tiri waan iibsanayaa ama waan u baahnaan lahaa يعني marka sidee ayaa arintaas ku dhacdaa social media xogteena miyuu dhageystaa oo duuba khabiir arrimaha tiknoolajiyada ku takhasusay oo la dhaho Dennis Kosoff ahna madaxa Telecom Daily oo ah shirkad data analysis ama taxliil albayaanaad samaysa ayaa dadka uga digay inay iska ilaaliyaan applicationada qaybtood oo xogtooda si qarsoodiya u aruursada tusaale ahaan wuxuu yiri Instagram-ka oo kale marar badan adoo isticmaalaya ayuu si qarsoodiya inta microphone-ku isku furo ayuu codkaaga duubaya yacni inta badan meesha xogtaada laga helo waa microphone-ka telefonkaaga oo furan applicationada ayaa marar badan iyagoo ku weydiinaya in microphone-kaaga ama kamiradaada aad u furtid laakiin marar adoo not allow yiri waxaa dhici karta inay si automatic ah iyagu u furtaan kamiradaada ama microphone-kaaga khubarada tiknoolajiyada inta badan dadka waxay kula taliyaan oo kula dardaarmaan in markay arrimo muhiim ah ka hadlayaan ama shir xasaasi oo kale ay ku jiraan in ay ugu yaraan telefoonada smartphones-ka iska damiyaan ama in ay iska fogeeyaan sababtoo ah khatartooda ayaa aad u badan waayahay marka sidee ayaa shirkadaha waaweyn ee social media iyo shirkadaha alaabaha iibiya ee products-ka iibiya xogtaada isugu gudbiyaan oo xogtaada uga shaqaystaan tusaale ahaan Facebook oo kale markuu codkaaga uu duubo oo kale isla markii xogtiiba Amazon ayuu u gudbinayaa Amazon xayisiimaha ugu horeeya ee aad arki doontid ayay kugu soo bandhigaysaa wixii aad ka sheekeynaysay markaas waxa laga yaabaa waxaas in aad ugu baahneed oo aad ka iibsatid ama waxa laga yaabaa in aadan ka iibsanba yacni iska daa maanta in products aad ka sheekeynaysay lagu soo bandhigay maanta xaaladdu waxay maraysaa in aragtidaada siyaasiga ah iyo cidda aad u codeynaysid doorashada soo socota la isku dayo in la maamulo sanadkii 2018 bay ahayd Facebook-ga markii lagu ganaaxay in uu bixiyo lacag balaayiin dollar ah Facebook-ga ayaa markaas khaladkii lagu helay wuxuu ahaa in uu 87 milyan oo qof oo kamid ah dadka isticmaala xogtooda si amar la'aan ah ugu gudbiyay ugana iibsaday shirkad wadanka Ingiriiska ku taala oo magaceeda la yiraahdo Cambridge Analytica Mark Zuckerberg, the CEO of Meta, formerly known as Facebook, will join other tech executives facing hours of depositions over the Cambridge Analytica scandal. shirkadan ayaa shaqadeedu waxay tahay tala bixinta gaar ahaan tala bixinta dhanka siyaasadda marka shirkadan waxay si weyn ugu jirtay ololihii Donald Trump iyo in Ingiriisku ka baxo midowga Yurub yacni qofka maanta oo dhan waxa loo soo bandhigayaa news ku saabsan cidda ay rabaan in ay soo saaraan oo kale cidda ay ka soo horjeedaanna waxa loo soo bandhigayaa news xun iyo in uu ka fogaado oo ciddaas uusan u codayn يعني social media maanta meel khatar ay xaaladiisu maraysaa xorriyadii oo dhan ayaa dadka laga qaaday su'aal yar oo kooban adigu ma aragtay ciladan ah waxyaalo aad asxaabtaada kala sheekaysatay oo kale in ay hadhow social media kaga soo baxaan wixii oo la xayeysiinayo